السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا هلالكن عبد المجيد habeen wanaagsan ama maalin wanaagsan kaydin tahayba muuqaalkeenan maanta waxaanu kaga hadli doonaa suurad ku jirta kitaabkeena quraanka oo haddii aynu fahmi lahayn ay fududaan lahayd noloshan adduunyo gebi ahaanteedba. inta aynaan mawduuca u gudagelin waxaanu kaa codsanaynaa inaad kanaalka subscribe ta saarto si ay nagu noqoto dhiirigelin. ku soo dhawow. ugu horreyntii waxaad ogsoonataa in Allah subxaanahu wa ta'ala inuu soo dejiyay kitaabkan quraanka inaynu ku hagaajisano nolosheena ku noolnahay gebi ahaanteedba. ma ogtahay in kitaabka quraanka uu yahay kitaabka adduunka oo dhan lagu akhriska badan yahay, balse nasiib darro ay bar kamid ah culimada islaamka ay sheegaan inuu yahay kitaabka lagu fahanka daran yahay. arrinkaas ay ku sababeeyeen in badanka dadku ay akhriyaan oo kaliya balse aanay dhugan macnaha guud ee ku jira kitaabkan. haddaba haddii aynu ka nimaadno kitaabka oo aynu yara jaleecno suuradda faatixa ama suuradda alxamdu, suuradan oo kulmisatay cajaa'ib badan oo ay kaga duwan tahay suuradaha kale ee quraanka kariimka. haddii aynu dhowr wax ka tilmaano cajaa'ibta ay kulansatay waxa ka mid ah arrinka koobaad ama cajaa'ibta koobaad ay kaga duwan tahay suuradaha kale. suuradani qof kasta oo muslim qaangaar ah way ku waajib. arrinka labaad ayaa maalin kasta qofka muslimka ah waxa uu akhriyaa 17 jeer suuradan, taas oo la sheegay in 8 milyan oo jeer maalin kasta laga akhriyo adduunkan korkiisa suuradan. arrinka saddexaad ama qodobka saddexaad ee suuradani kaga duwan tahay suuradaha kale ayaa ah markii suuradan Allah subxaanahu wa ta'ala ku soo dejinayay nabi maxamed inuu u soo dhiibay malag aan ahayn malaku jibriil. aynu yaradayna bal qodobkaas sheekh mustafa ibn Abbas baa wuxuu leeyahay بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم. نبي عليه الصلاة والسلام وحاوت الماما يسوع جبريل فردي أيو جبريل سنقد مغلي دبتر وحده واب الباب كمده عركه الله فري ولي هور الله ما فري ما أنت قول الله فري ملك باك سود جايبو يلي ولي أن هور دول كويمن. إذا فاتحته مركي دول كيمن يسي وفد جارة ودتي جبريل أقول موسى قادنه وحكاني ملك عن دول كبهرة ويمنين. haddaba waxa isweydiin mudan ma garanayo ma fahana waxa ay noo sheegaysay suuradani. waxa uu baalaa haddii aynu fahmi lahayn macnaha iyo miisaanka ay noo sida ama ay noo xambaarsan tahay suuradani in aysan adduunka ka jireen haba yaraatee wax khalkhal ah. sababtaas oo ah qofkii faatixada gartay ilaahi abuuray ama allihii weynaa koonkan ayuu gartay. markasta uu qofku allihii abuuray gartaana adduun iyo aakhiraba uu liibaanayaa. sidaas darteed ayuu alla weyne ugu tilmaamay inay suuradani tahay suuradda ugu weyn quraanka. mar labaad aynu deeno qodobkan cadeyntiisa sheekh mustafa xaaji ismaaciil wixii kitaab soo degayay waxyiga ku qoran ee xagga alle ka yimi faatixada ugu weyn iyada ah buu nabigu yiri sabca almathani iyo quraan alcazim bayada ah. haddaba haddii ay tahay quraanka ilaahay soo dejiyay sida labada xadiis sheegayaan ama waxyigii soo degayba suuradii ugu weynayd ee rabbi uu keeno subxaanahu wa ta'ala. ugu dambeyntii aynu ku dadaalno fahanka kitaabka ilaahay. muuqaalkeena maanta intaas ku eegyahay. intaan ku kulmayno muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo salaamaad.